wacan oo wanaagsan akhyaarteena sharafta badan halkaad nagala socotaan waa warbaahinta xorriyadoon online. warbaahinta xorriyadoon online had iyo jeer waxay u taagan tahay in idiin soo gudbiso warar iyo barnaamijyo kala duwan oo ku salaysan xogta iyo xaqiiqada ka jirta gobolka geeska Afrika. haddaba dhegaystow mararka qaar haddii aad dhibsato wararka iyo barnaamijyada ka baxa warbaahinta xorriyadoon online, waxaanu ku leenahay kownkan aadmiga jooga ruux waliba kurbadiisu iyo kaskiisu hadlayaa oo dadku waa kala maane adigoon kululaanin hala boodin ka sheekaalintaada ka qaado wixii kula wanaagsan ruux baa kohanayo ha kadsoomin dhegayste dadku waa kala maane. iminkii haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkeennii maanta. wararka u dambeeyay naga soo gaaraya caasimada Baxardaar ee ismaamulka Axmaaradu waxay sheegayeen in madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdigiisii ballaarnaa ee isugu jiray aqoon-yahanka, siyaasiyiinta, odayaasha iyo mas'uuliyiinta maamulka Somali State si heer qaran ah loogu soo dhaweeyay caasimada Baxardaar ee ismaamulka Axmaarada. soo dhaweyntaas heerka qaran ee la soo dhaweeyay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar kadib waxaa bilowday shirkii wadatashiga iyo aqoon isweydaarsiga labada qowmiyadood ee Axmaarada iyo Soomaalida, halkaas oo ay shirka fureen madaxda ismaamulka Axmaarada oo ay sheegeen in ayna marti ku ahayn gobolka Axmaarada laakiin ay yihiin dalkoodii labaad, taasoo ka mahad celiyeen mas'uuliyiinta Soomaalida iyo odayaasha deegaanka Somali State iyo dhammaan aqoon-yahankuba sida fiican ee Axmaaradu ay ugu soo dhaweeyeen ismaamulka gobolka Axmaarada. kadib halkaasi waxaa bilowday qaybihii aqoon isweydaarsiga. waxaa halkaasi ka hadlay aqoon-yahanka taariikhda ee Axmaarada oo iyaguna ka sheekeeyey taariikhda iyagu sida ay u dhigaan. waxay halkaasi aqoon-yahanka Axmaarada qaarkood ay ka sheegeen oo xag jirka ah ee taariikhdii Axmed Gurey ayay ka sheekeeyeen oo si khaldan ay uga warrameen. sidoo kale waxay ka warrameen dagaalkii 77 oo ay ku sheegeen inuu ahaa dagaal isaga laftiisu aan ahayn dagaal Ethiopia ku kooban ahaa dagaal ay dawlad shisheeye ay ku soo qaaday ee dalka Soomaaliya. taariikhda Axmaarada sida u qoran weeyaane. haddaba taariikhaha si khaldan ee Axmaaradu ay haystaan ama ay shacabkooda baraan waynu isku ognahay inay jiraan, sida aynu inaguba ognahay Axmaarada inaynu taariikho fara badan ka haysano oo gumaysi iyo nacayba ayaa ay aqoon-yahanka Axmaaradu halkaasi ka soo jeediyeen. halkaas kadib waxaa hadalkii qaatay aqoon-yahanka Soomaalida oo iyaguna ka warramay taariikhda Soomaalida iyo sida ay sirka ugu leeyihiin dhaqanka wanaagsan, isla markaasina ay yihiin dad Soomaalidu han leh oo aan ogoleyn had iyo jeer in la cadaadiyo ama la gumaysto, taas oo ay ka muujiyeen taariikhda soo jireenka ay halgamayaashii Soomaalida. bal hadda waxaynu halkaasi dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa odayaasha iyo aqoon-yahanka Somali State. aqoon-yahan lagu magacaabo Yuusuf Gaboobe ayaa isagu aad iyo aad ugu dheeraaday taariikhda Soomaalida, wuxuuna ka warramay taariikhdii Axmed Gurey iyo Axmed Gurey inuu ahaa nin Soomaali oo halgamaa weyn. sidoo kale wuxuu ka hadlay taariikhdii dagaalkii 77 oo uu ku sheegay inuu yahay dagaal ka bilowday kacdoon shacab oo ay ku doonayaan xuquuqdooda inay ka helaan dalkii markaasi jiray ee Ethiopia. haddaba bal aan dhegaysano aqoon-yahan Yuusuf Gaboobe oo ka hadlaya taariikhdii dagaalkii 77 iyo taariikhdii Axmed Gurey. dhegaysi wacan. haddaba haddii aan intaa kaga gudubno wararkii u dambeeyey ee shirweynaha wadatashiga labada qowmiyadood ee Soomaalida iyo Axmaarada oo wararka wixii ka soo kordhan aan idinku soo gudbin doono iyo shirkaasi qaabka uu ku soo dhamaadaba wararkeena dambe ee warbaahinta xorriyadoon online. iminkii haatanna waxaynu gudbaynaa barnaamijkeena qaybtiisii labaad oo ah barnaamijkii falanqaynta wararka. waxaynu maanta kusoo qaadan doonaa barnaamijkeena xiriirka u dhexeeya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo qowmiyadda Axmaarada oo in dhaweydba qaybo ka tirsan shacabka Somali State su'aalo badan ka soo jeedinayeen. qaar ka mid ah waxay taageersanayeen furfurnaanta madaxweynaha isbedel doonka mudane Mustafa Maxamed Cumar oo arkayeen inuu yahay madaxweyne deeqi kara rabitaanka shacabka Soomaalida ogaadeynaya iyo rabitaanka qowmiyadaha dalka Ethiopia isku xidhkooda, saas darteed uu noqon doono hogaamiye caalami oo geeska Afrika. halka qaar kale ay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ay ku dhaliilaan in uu yahay madaxweyne u janjeera qowmiyadda Axmaarada. sidaan la socono deegaankeena laftiisa isbedelada ka socda waxa ay dadka Soomaalida ogaadeynaya u qaybsan yihiin qayb isbedel doona
oo raba rabitaanka soomaalida ogaadeen iyo karaamada iyo sharafta aynu leenahay inaynu helo kasakow inta aynan gaarin xuquuqaha aynu leenahay iyo inta aynan helin xorriyadda iyo gobonnimada aan ka doonayno dalka Ethiopia sababtoo ah qowmiyaddu marka ay rabto inay dal ka xorowdo waxaa loo baahan yahay inay leedahay dhaqan iyo asluub ay kula dhaqmi karto ee qowmiyadda ay la sii nooleed amaba se ay kaga go'i karto taasoo aad moodo ee dadweynaha qaarkood inayna waxba ka fahamsanayn oo ay garanayaan uun in ay fahmi jireen dawlad ka go'day iyo dagaal dhacay iyo balaayo dhacday iyo cadaawad taas oo aan ahayn ee dhaqanka qowmiyadaha wanaagsan qowmiyada wanaagsan ee xuquuq raadiska waxa lagu gartaa inay leeyihiin dhaqan iyo asluub ay kula dhaqmaan cadawgooda haddaba madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo taas ka turjumaya ayaa dadka kale ku dhaliilaya hadii aynu soo qaadno waxa ay dad had iyo jeer iyaga laftoodu isbedel diida oo aan ogolayn in Soomaalidu ay caalamka ku yeerato waji fiican had iyo jeer waxa ay la wareegayaan tashuushyo fara badan waxaan la soconaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar intii uu xilka qabtay in dhaliilo fara badan soo jeedi jireen ee dadkaas iyaga isbedel diidka oo asaaskoodu xiriir leeyahay dadkii hore ee cunsuriyiinta ah ee xukumi jiray maamulka ee TPLF ay wakiilatay haddaba madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ugu horeyntii intii xafiiska qabtay waxa lagu dhaliilay inuu yahay shakhsi u janjeera qowmiyadda Oromada oo iyagu ay keensadeen kadib markii taas ay ka fashilantay kooxaha tashuushka ku furaya isbedelka ka socda ee Soomaalida ogaadeen iyo guud ahaan dalka Ethiopia waxay haddana bilaabeen inay u wareegaan dhinac kale oo ah in madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu yahay shakhsi u janjeera axmaarada oo xidhiidh maaragtay xaddaaf la leh xidhiidhkaas oo ay ku tilmaameen bararka qaarkood inuu madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar yahay nin aaminsan afkaarta qowmiyadda xaq jirka ah axmaarada taas oo ay ku eedeynayeen in xitaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu meelo fagaara ah kaga dhawaaqay in aanu federaalka Ethiopia aqoonsanayn isla markaasina gabi ahaanba maamulka isagu uu madaxda ka yahay uu jeclaan lahaa in sida ugu dhaqsaha badan loo kala diro haddaba wararkaasi beenta ah ee ay markaasi wareejinayaan kooxahaasi iyaga ah ayaa waxay beenoobeen mar kaliya markii ay ku soo darsadeen barnaamijkooda madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo rabitaankiisu yahay in xitaa ciidanka deegaanka ee liyu booliska ee deegaanadu ay lahaayeen ee deegaanka Soomaalida ciidankooda la kala diro taas oo iyada lafteedu ay markii dambe haddana isla kooxihii laftoodii afkooda ay ka qireen in madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu yahay midka soo dhaweysanaya gacanta ku haya ee dadka ku xasuuqaya ee ciidanka liyu booliska kadib markii haddana isla ayagu ay ka abuureen fidmooyin kale oo ciidanka deegaanka oo markii hore ay ku tilmaami jireen in halyeeye aan loo baahnayn in la kala diro ay haddana carabkooda kaga dhawaaqeen inay yihiin dhagar qabayaashii shalay oo shacabka gumaada iyo isla markaasina calamada ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo calamada deegaanka iyo shacabka xasuuqiisa u geysta waa kooxaha iyo jeer isbedela ee dabaysha xagaa ayaa saasi marka ay u hadleen haddana laakiin waxa muhiim ah shacabka Soomaalida ogaadeen iyo xalaasha inay ogaadaan xidhiidhka dhabta ee ka dhaxeeya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo qowmiyadda axmaarada sida aynu wararkeena ku soo gudbinay waxa ku muuqanaysa xidhiidhka dhabta ah ee ka dhaxayn kara madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo dawladdiisa Somali State iyo qowmiyadda axmaaradu nooca uu yahay waayo waxa mar walba la ogaadaa xaqiiqada ka jirta ee dhulka inta aadan ogaanin tashuushka dadka fura haddaba aan soo qaadano madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar inta aynaan ka hadlin xiriirka u dhaxeeya nooca uu yahay ee qowmiyadda axmaarada iyo deegaanka Somali State cusub iyo qowmiyadda cusub ee isbedel doonka axmaarada intaynaan ka hadal bal aan soo qaadano maxaa ka horeeyay kadib markii TPLF kooxdii cunsuriyiinta ay dhagar qabayaasha ahayd ee xukunka la wareegeen ee dalka Ethiopia waxa ay isku dayeen inay kala fogeeyaan qowmiyadaha dalka Ethiopia si ay awood ugu yeeshaan kooxdaasi tirada yar inay dalka Ethiopia xog ku xukumaan iyo siyaasad qaybi oo xukuna haddaba taas ayaa ugu dambeyntii waxay ku fashilantay kadib markii TPLF lafteeda si dhib yar xukunka looga tuuray oo ay ku guuleysteen qowmiyadihii isbedel doonka ah in TPLF xukunka dalka Ethiopia ay ka fogeeyaan haddaba kooxihii halkaas ay ku dhisteen TPLF ayaa waxa kamid ah boqortooyadii madaxda ka ah Cabdi Maxamuud Cumar boqortooyadaas ayaa waxay ahayd mid sumcad xumo fara badan soo jiiday ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaalida ogaadeenaya waxay ahayd ummad shariif ah waxay ahayd ummad qowmiyadaha si fiican ula dhaqmo waxay ahayd ummad xuquuqdooda doonaya ugu dambeyntan rabitaankooda yahay inay afti laga qaado ka helaan gobonnimo dalka Ethiopia rabitaankooda rasmiga ah inkastoo xuquuqdooda horena ay ahayd midda bayska koowaad ay ku helayaan in Ethiopia kula noolaadaan xuquuq iyagu ay kula siman yihiin haddaba rabitaanadaasi iyo sawirka wanaagsan ay lahaayeen Soomaalidu waxa burburiyay kooxdii uu madaxda ka ahaa Cabdi Maxamuud Cumar ee TPLF ay dabada ka riixaysay waxaan ognahay oo la soconnaa in dhaqankii Soomaalida gabi ahaanba kooxdaasi burburisay in ay dhamaanba ka iibisay Soomaalinimadii
Etoobiyaanimo ayna isku hubin meesha ay ku dambeyn doonto waxayna ku faaneen Etoobiyaanimo ayna ogeyn halka ay sal iyo raad ku leedahay laakiin Etoobiyaanimadaas ahayd Etoobiyaanimo loo daba fadhiyo kooxda TPLF haddaba taas ayaa iyada lafteedu fashilantay laakiin waxa ay sumcad xumo soo jiideen ummadeennii Soomaaliyeed dhinaca kale waxayba bilaabeen haddana Etoobiyaanimadii markay ku kalsoonaan waayeen inay u bedelaan Tigreennimo ay yiraahdaan walaalaheena koowaad waa Tigree Etoobiyana waa inaan lafteeda gacan bir ah ku qabanaa waxaynu ognahay qowmiyadaha Etoobiya kooxdii TPLF iyo dhagarqabihii Cabdi Maxamed Cumar ay laftoodu bilaabeen inay halkaas ka bilaabaan in dhammaan qowmiyadaha Etoobiya iyo qowmiyada Soomaalida colaad kala dhex dhigaan marka laga reebo kooxda Tigreega taas oo aynu ognahay inay calamada qowmiyada Axmaarada iyo calamada qowmiyada Oromada iyo qowmiyadaha kale koonfurta dalka Etoobiyaba ay kooxdii Cabdi Maxamed Cumar meel fagaar ah ku gubeen ayagoo markaas cadaawada muujinaya qowmiyadaha dalka Etoobiya ee aan la noolnahay haddaba ayada oo mugdigaas ku jiro mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo karaamada iyo sharaftii aynu lahayn ayaa waxa isbedel ka dhacay dalka Etoobiya haddaba isbedelkaas waxyaalaha ay Soomaalidu ka faa'iideynayaan waxa kamid ah inay ka heleen madaxweyne laftiisu isbedel doon oo raba in la furfuro isla markaasina la tirtiro khaladaadkii aynu qowmiyadaha ka galay isla markaasina aynu Etoobiya kula loonaanay inagoo han leh kow inaan Etoobiya kula noolaano haddii aynu Soomaali nahay inagoo rabitaankooda ka muujinayna dhexdooda iyo magaalooyinkooda iyo caasimadahooda inaan kula hadalno oon kula gorgortano una sheegno taariikhdeena rasmiga iyo kuwa aynu dhahay saaxiibtinimo gaarana aynu la samaysano taas isagoo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo maamulka Somali State dhamaantooda isbedel doonka iyo dhamaan Soomaalida ogaadeenaya wadaniintiiba ayagoo taasi ka duulaya ayaa waxa dhacday in furfurnaantaasi ay ka bilaabatay deegaankeena inaynu qowmiyadaha dhammaan xiriir la yeelanay waxay shalay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar xiriir wanaagsan la soo yeeshay qowmiyada Oromada oo walaalintoodii uu ku guuleystay isaga iyo qowmiyada Oromada iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka Etoobiya isbedelkiisa laga faa'iideysanayo haddaba taas markii ku guuleystay haddana madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar wuxuu furay batch cusub oo isla markaasina xiriir wanaagsan aan kula yeelanayno qowmiyadii aan isugu cadaawada badnayn kadib markii halka lafteeda ay ka dhacday qowmiyadaas Axmaarada lafteeda isbedel ka dhacay lafteeda inay ka soo baxeen tii laftoodu raba isfurfurnaanta iyo Etoobiya xuquuqaheeda kala hesho isla markaasina loo baahday baaxina ay keentay in dadka furfuran ee Soomaalida ah iyaga laftoodu raba xuquuqahooda iyo rabitaankooda Etoobiya inay ka dhaxelaan iyo kuwa kale ee Axmaarada qowmiyadeeda ka tirsan ayaguna ay ka helaan rabitaankooda iyo xuquuqahooda dalka Etoobiya iyo xadgudbayn xuquuqaha kale intaas ay fursad siisay dadkaas iyagoo ay suraadsadaan adina dhisaan saaxiibtinimo iyo isbedelka loo baahan yahay dalka kan Etoobiya inuu ka curto taas oo aad moodo in hadda uu jidka ugu fiican uu cagta ku hayo haddaba waxyaalaha muhiimka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar xiriirka u dhaxeeya asaasiga ayaanu soo gudbaynaa wuxuu yahay xiriirka u dhaxeeya haddaba haddii aan ogaanay sumcad xumadii kooxdii TPLF ay u keentay ummadda Soomaaliyeed kow madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar hamigiisu wuxuu yahay inuu dhammaan tirtiro karaamadii iyo sumcad xumadii kooxdii TPLF iyo gacan-yarahoodii Cabdi Maxamed Cumar in laga tirtiro lana tuso sawirka dhabta ah ee Soomaalidu ayagu ay leeyihiin haddaba sawirka dhabta ee Soomaalidu leeyihiin ayaa isagu wuxuu yahay mid had iyo jeer ku dhisan inay yihiin ummad dadka qiimaysa ummad karaamaysa ummadan cunsuriyiin ahayn taas ayaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waa hamiga uu ka leeyahay xiriirka u dhaxeeya Axmaarada iyo isaga madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo maamulka Somali State waxay go'aansadeen in ay muujiyaan Soomaalidu inay yihiin dad cadawgooda la heshiin kara saan ula socono Soomaalida iyo Axmaaradu waa labada qowmiyadood ee isugu fog aan soo qaadano hal tusaale Soomaalida waa ummadda ugu fog dalka Etoobiya rabtay in dalka Etoobiya xuquuqdooda ilaa heer go'itaan ay ka helaan waa ummadda kaliya taas isku raacsan dhinaca kale qowmiyada Axmaaradu waa ummadda kaliya ee ilaalisa qowmiyadnimada iyo isku xidhnaanta dalka Etoobiya waliba leh dawlad xoog badan labadaas fikradood ee kala duwan ee erkiga dhulka isu jira ayaa haddana mararka qaar bini'aadanku waxay ku guuleystaan inay labada kala fog la isu keeno aqliga wanaagsan wuxuu keeni karaa labada kala fog inay helaan fikir ay ku heshiin karaan taas ayuu madaxweyne Mustafa uu ka duulaya wana fikirkiisa asaasiga waa fikirka keenay qowmiyada Axmaarada inay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ay si fiican u jeclaadaan sidoo kale waa fikirka keenay Soomaalida laftooda inay wax badan ka fahmaan Etoobiyaanimada jidadka loo maraa inay yihiin jidad fara badan haddaba siyaasadaasi waa ta koowaad ee xiriirka ka dhaxeeya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo
iyo qowmiyadda axmaarada midda labaad waxa weeye madaxweyne mustafa maxamed cumar iyo maamulkiisa Soomaali State iyo guud ahaan shacabka Soomaalida ogaadeen iyo ururada iyo siyaasiyiinta iyo dadka wadaniyiinta Soomaalida ogaadeen iyo u dhashayba dhammaantood waxay ku heshiis yihiin oo ku midaysan yihiin in aan la dafirin karaamada iyo jinsiyadda aynu nahay Soomaalinimada mansab kasta oo hayo qofka Soomaalida ogaadeenaya hadii uu madaxweyne yahay hadii uu mas'uul hooseeyo hadii uu mas'uul hal federaal yahayba waxa ay Soomaalidu ku taageeraysaa maanta in hankiisa iyo jinsiyadiisa Soomaalinimo uu muujisto taas ayaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu ku sifoobay shirar kasta oo kaga qayb galo shirarka qowmiyadaha dalka Itoobiya wuxuu had iyo jeer muujinayaa oo diyaar u yahay isaga oo kaashanaya odayaasha iyo aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo ururada wadaniga ah ee dalkooda u daneynaya ee aan ahayn kooxaha rajciga dib u socodka ah laakiin kooxaha raba wadankooda inuu dhismo intaas oo iskaashanaya waxay maanta u diyaar garoobeen in qowmiyadaha Itoobiya hor fariistaan ay isu sheegaan kuwa ay yihiin taas ayaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar hadana ay ku qotontaa xiriirka maanta u dhaxeeya qowmiyadda axmaarada iyo qowmiyadda Soomaalida ee ka curtay dalka Itoobiya aan keenayna in shir wada tashiya oo ay yeeshaan labada deegaan ee axmaarada iyo Soomaalida oo labadii isugu fogaa shalay sidoo kale waxa iyaguna xiriirkooda uu heerka u sareeyo uu maraya qowmiyadda dalkan hadda Itoobiya ka talisay Oromada oo iyadana xiriirkii ay kooxdii Cabdi Maxamed Cumar TPLF ay kala dhigtay iyo xumaantii iyada lafteeda laga gudbay maantana dadkii ay walaalayihiin sidoo kale madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar hamigiisa ayaa wuxuu yahay inuu xiriir kale la yeesho qowmiyadaha dalka Itoobiya marka laga reebo kooxda TPLF oo iyadu cadawga dalka Itoobiya iyo cadawga Soomaalida ogaadeenaya kuwaas ayaa in laga fogaado muwaadinka Soomaaliga waxa lagu qiimeynayaa hadba inta talaabo ee uu jirsado kooxda dhaqaqabayaasha ee TPLF hadaba madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxa uu baahan yahay Soomaalidu inay taas ku taageerto isagana Soomaalidu waxay ka rabtaa in madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar sida maanta karaamadiisa uu muujiyay shirweynaha ka socda Baxardar madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar maanta waxa xusid mudan oo wararka u dambeeyay ay sheegayaan in markii ay ogaadeen fikirkiisa iyo hamigiisa dheer ay sukaanka qowmiyadaha dalka Itoobiya iyo isfahamka iyo xuquuqdooda in qowmiyadaha laftoodu ay si furan u kala raadsadaan ayaa waxay keentay qowmiyadda axmaarada halkaas ay ku siiyaan oo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ugu deeqaan bilad dahabiya biladaas dahabiga oo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ka dheehanayay inay lafteedu xoogaa karaamo jab ku tahay qaabka ay u samaysan tahay karaamada diinta iyo Soomaalida midnimadeeda iyo jinsiyadeeda karaamo madaxweynaha waa diiday markaas kadib qowmiyadda axmaarada oo haysa rajo weyn iyo soo dhaweyn iyo karaamo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo guud ahaanba shacabka Soomaalida oo ayaga oo og in ay dhibaato weyn soo gaarsiiyay qowmiyadda axmaaradu haddana shacab wax iska cafiya shacab xuquuqdooda raadsada shacab leh karaamo iyo wanaag dadka cadawgooda kula dhaqmaan markii ay ogaadeen ayaa waxay biladii ugu bedeleen madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar astaanta iyo hadiyada isagu uu jecel yahay oo midda dhaqanka islaamka oo khamiiska iyo cigaalka iyo alaabta dhaqanka ummadda muslimiinta ama bas dhaqanka ummadda Soomaaliyeedba ku qotoma aan iraahne taas hadiyadaasi ayuu madaxweynuhu ku bedeshay isaga oo muujinaya jinsiyadiisa Soomaalinimo iyo islaamnimo isla markaasina madaxweynuhu raba in mas'uuliyiinta ka hooseysa iyo kuwa ka sareeya Soomaalida deegaanka ilaa heer qaran oo dalka Itoobiya ay ku daydaan inay ilaashadaan karaamadooda iyo jinsiyadooda Soomaalinimo iyo mabaadiidooda waa taas ta looga baahan yahay madaxweynaha dhabta ee loo baahan yahay inuu hogaamiyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar runaantii hadalkeena waxaynu ku soo koobaynaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waa madaxweyne laga jecel yahay dhammaan qowmiyadaha dalka Itoobiya siyaasadda isbedel doonka dalka Itoobiya ka curatay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar runaantii waa madaxweyne laga jecel yahay deegaanka Somali State shacabka Soomaalida ogaadeenaya waxa kaliya ku taageerayana waxa weeye inuu yahay madaxweyne aan ogolayn in uu jinsiyadiisa ka fogaado una ku faano jinsiyaduna ahayn sida kooxdii ka horeysay maamulka ay sameyn jireen waa madaxweyne raba Soomaalinimadiisa inaanu cidna uga daba fariisan taas ay rabaan shacabka Soomaalida ogaadeenaya dhinaca kale waa madaxweyne raba in karaamada iyo wanaaga ay leedahay ummadda Soomaaliyeed aan lagu burburinin aragti xukun tusaale ahaan haddii aan soo qaadano qowmiyadda axmaaradu maanta waa qowmiyad laga fogeynayo dalka kan Itoobiya
oo laakiin muddo dheer soo xukumi jirtay laakiin maanta xukunka dalka Ethiopia aan gacanta ku hayn haddii hogaamiyuhu ku fikiro qowmiyadan xukunka gacanta ku haynin ka fogow calamadoodana gub sidii cabdi maxamuud cumar oo isagu maangaabnimo halkaasi u sameeyey si uu isaga iibiyo kooxda Tigraaga haddii madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar isku dayo inuu kooxda xamaarada iyo qowmiyadaha kale dalka Ethiopia uu ku gato oo iskaga iibiyo qowmiyada hadda dalka xukuntay Oromada guud ahaan shacabka Soomaalida ogaadeen way ka horjeedsan lahayn laakiin maanta shacabka Soomaalida ogaadeen waxay ugu hambalyeynayaan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu yahay madaxweyne aragti dheer oo la saaxiibi kara dadka maanta xukunka Ethiopia aan gacanta ku haynin qowmiyadahooda iyo kuwa maanta gacanta ku hayaba saaxiibtinimo dhow iyo isku xidh la yeelan kara isaga oo hor dhigi kara rabitaankiisa haddaba madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta Somali State iyo odayaasha Somali State oo laftoodu kaalin fiican ka qaatay oo maanta isla markaasi wacdara ka muujinaya shirka halkaasi uga socday wada tashiga ah iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed laftoodu oo wacdara ka muujisaan hore idinku sheegnay ugu horeeyo aqoonyahan Yusuf Gawabi iyo kuwa kale maanta waxaynu ku faani karnaa inaan leenahay dad ku faani kara Soomaalinimadooda dad xiriir la yeelan kara qowmiyadaha guud ahaan dalka Ethiopia hadiiba ay noqoto mid aynu isugu cadowsanaan jirnay oo qowmiyada xamaarada iyo kuwa aynu walaalaha nahay isugu dhaweeyay u sakeeya oo maanta iyaga laftooda aynu nahay walaalo iska sii jecel walaalihii shalay taasoo ku timid siyaasadda suuban ee madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo mas'uuliyiinta Somali State heer qaran iyo heer deegaan tan iyo kulanti dambe oo warbaahinta xorriyadoon online idin leh ku xidhnow oo helkaaga joogtada ah ka dhigo warbaahinta xorriyadoon online